waxaan filayaa deysmadu go'aan bay u soo jeedsheen go'aankana waa laga sugayay waxa way go'aanka soo jeediseen ismahan waa qaadanayna waayo waxa weeyaan waa wax la sugayay waxa weeyaan oo la sugayay weey ujeedka iyo hadafka waxa Soomaalidu ninba walba sidoo doono inuu sheego horta macna ma keeni karo waxa dadku cabanayaan kaliya waxa weey war heshiisa kan weeye wax kaleeto oo jira ma jiraan haddaad heshiiskii ballan qaadeen oo tiraadeen bulshada waa la soo hordhigaya waa la keenaya boqolkii 300 baan soo dhaweynaa ku jeer baan soo dhaweynaa waayo waxa weeye qofka waxa la doonayaa waa heshiiska weey waxa laga kacayna waa heshiiska weey oo la isu joojin waayay oo la oran waayay war heshiiska dadka xub bandhiga dadku haddii reer guurooga guureen markay jiilaalku dhaco barwaaqo dhaxoob jiro sahan baa la dirsadaa sahanku markuu dhulkii tago reerka waxa weeye ninka sahanka tagay reerka beenu ma sheego wuxuu soo celiyaa hadday abaartay wuxuu yiraahdaa dhulkii baad bulaha wayna dhaabay baad baa jiray reerka la soo raro haddii barwaaqo jiro wuxuu meeshana barwaaqo badan reerka la soo raro waxa reerku doonayaan waxa weeyaan arrinta jidhay waa taawi sahanka ragii tagay baa waxa laga leeyahay warbar dadkii wax soo tusoo dadka u sheega bulshadu wax sheegid bay doonaysaa haddii laakiin la yiraahdo waxba sheegi mayno oo inta hadba meel xogaa la garo yaxaan intaas aan wax sheegnay dadku waxa weey taas uma dhaqayso dadka taas uma dhaqayso waxa dadka dhaqaaya in wax loo sheego hogaan iyo waxba leedin ibta amaana leedin ibtay amaanada leedin ibtay in ummadda ka dhaadcisaan oo sheegtaan ba xaq la weydi kuleeyaa iyadana la doonaya waxa kale hadda la yiraahdaa madaxweynahan maadhood wax ka maqlay kalka markay ku shirayeen Kismaayo wuxuu yiri waxa la maxaa baarlamaankii idinku golaas ka weysare iyo kuweesoo idinku aamini weydeen wuxuu yiri masiirku waa ka weyn yahay buu intaa waa ka weyn yahay masiirka waxa weeye masiir arrimo masiir nin walba lagu aamini karo haddii masiiriga ha weeytano waa baqnayaan hortaana la yaabin sidaas uu u baqay baana naguna u baqnay markaan wax badan eegnay taasna waa sidaa weey hal waxaan kula waxa hadda laga hadlay amniga waxaan nasib daraa amniga in maalin walba amni laga hadlo wariyay amniga wada looga shaqo qabaa amniga yaa looga shaqo qabaa ma nabadoonada looga shaqo qabay ma ganacsatada looga shaqo qabaa ma ilaakum dumarka looga shaqo qabaa ma jooga looga shaqo qabaa ma aqoonyaanka looga shaqo qabaa illa istilmaam xaqiiqada in la tago loowi adcadaha waxa la mariyaa marka la kaftabadeen nimanka maamulka inoo jooga waxa kiciya ummadii maadhood waxa lahaa dibta dhacday waxa loo haystay ganacsatada loo haystay haddiina wax kaani nabadoonada loo haystay war waxyaalaha qaybta in la kala xishoono oo adcadaha waxa la isku marnay dadka in la kala xishoono oo in wax isdhowrno waxaynu wax ku nahay kursiga idinku way ku xaq dhowrayna laakiin dadka ku xaq dhowro teetalkooda qolo walba joogto ku xaq dhowro yaan maaragtay arrintii noqon in qof walba la duro waxaan jirin laga sheego amniga magaalada inta nimaan ciyaalkiisa iyo reerkiisa joogin ma jiro inta nimaan caruurtiisa iskool ka dhigan ma jiro inta nimaan maslaxad ugu kala xinin ma jiro magaalada xagee u socdaan dadka la leeyahay amniga xumaa ka shaqeeyay way wixii ka shaqeynaya amni xumada meel baa looga soo jeesanaya inagana ma laakiin adcadaha waxa la marinayo waa aad iyo aad waxaan uga xunahay way maahna wax dadku gayaanin ma hal laga fiirsado qofku hadalka markuu galaa meesh ka hadlayo ha ka fiirsado hadallada qaybtooda laga fiirsado amnigana wuxuu ku fiican yahay ixtiraam waxaan u maleynayaa qolada ugu howl badan baan haddaanahay nabadoonada dibta ugu badan dadka ku dhacda anaga way wax kala gurid anaga way kuwa isqabta anaga kala gura kuwa caran anaga soo qabana kuwa dhiiga isdil anaga soo qabana wariyay cid soo qabatay meesha joogtaa maanta yey tahay maxaa dadka khiyaaliga loogu sheegaya cid wax soo qabatay yey tahay waa inta nabadoonadaas way isinkaas la kaalshadaan markay ula tagaan markay wax soo qabanay yiraahdaan warisiru waxa soo qabanay waa ka yey tahay cid soo qabataa haddii marka la ixtiraam waayo hadda waxa weey ninku wax lagu kala xishoodaa ninku waxa weey kursiga waa laga xishoonayaa kursiga qofku laba ilmaadera leeyahay laakiin kursiga waa lagu ixtiraamayaa yaa wax badni ka soo gudbin hadalkaaga marka hore ku fo taasna waxa leeyahay waa sida nolosha magaalada iyo danta magaalada xaq baa dadka nin walba bulshada noocyada kala duwan dadka xil baa nin walba saaran inuu nin walba dadkiisa gutuna waa waajib hadalkii waxa ku dhamaaba markii la seego labadii sheekhu halka ka baxay maanta ninka wacdi ku dhamaa wixii labadii sheekh halka ku dhamaa wixii jiraba waa soo bixi doonaanin haddii mashruucaas yahay xalaal oo sidaynu u loo sheegayo dadka dib loo sheegayahay boqolkiiba boqol baanu soo dhaweynayna ma kuman jeer baa soo dhaweynayna
باهدا يدا باهدا يدا إن أنا دكتور وين هلو إن أنا كنعسي هلو إن أنا بوحر كفانو هلو إن أنا وحكو هرمر هلو باهدا يدا لكن واحد ماشي نوب مغطي راس العصير يلا سسرد يعني وحبان ما وركجرا يا أنت سورينا ربي ما هنا نحكرو وحبان ما نوم مغطي وابغنا يا كريه وروابغنا وحنو كبغنا هلا هجاجي ومسك الله صوصارو وحوي وحكنا جوان وذنا مجرانين قال عسى ويهد لين سيدي ودلين بعد وحوي قال عسى كانوا يقعد لين بانور ديار ويجنون نهي أرنتها وحنا كسر ويننا وذاك المدة أنا جنا خصيصي إن مسك وحده الصوصار أنا خصيصي وحكنا جوان تاكل قال عسى أنا جاي نهرايان هدي أدير ميروح سار أنا قدوش أنا كساريان أذكر ساري ما ينقل برشة سي ساريان وأشود وينه وحنا قاعد كروس كقاعدنا وحنا كنا زود وقاعد وينه أنو بس كمريسا لكن أرنتها نبضونا هذانا هاي كل يوم أفكيس يانو كهذلايا أرنتها كبغنا وأرنتها إن مسك الصوصارو ووحنا وداركو أولنا الشافيو هدي إن أفعدوا وولا قاعدينا ورسول ويننا مشاريعنا ملو بواتر مثل بواتر وين ميدان أرينا مجراني هدي بقولت كذا لكن ورسول ويننا وحنا ترايا وحنا ترينا اللهم بلغت بأنه وقبله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كانت عادوا ما سيهاي نبضان سعيد.